somaliland qolada xamar reer somaliland hal baynu ka rabnaa barorta intaynaan cabdilaahow dee idinkaa u horreeyey odayaashii meesha berigii ahaaye hal wax baa nimanka laga rabaa intaynaan isku qabsayn inaan isducayn qoladan xamar joogta ee talaanigu goysan jiray ma qirsan yihiin inaynu ahayn laba dowladood lixdankii midoobay tan maanta sheegi ka hadli maayo garteeda waxa weye war horta laba dowladood iswid ma ahayn ma gobol idinka mid aanu ahayn miyaana qabsateen xoog baan ugu qabsateen ereygaa madaxda xamar joogta kuwa hore iyo kuwa kan nin toos u aqbalayaa ma jira cabdilaahu mar haddaan taa hore ee 4 sano ka hor aan lagaba heshiinayn sidee baa looga wada hadli karaa wax ka dambeeyaba waxa weeye laba dowlad baynu ahayn waynu sunnay guraynu wada dhisanay wuu dumay see loo dhisay laakiin haddaad tidhaahdo waxba midaan lahayn waan ku haystay bal dhowna ha u ridaan iyagaa laga rabaa taas ilaa 5 goor baydna dhex galeen jimcada qurun raxaysan ninka ka wakiilka iyo igad iyo qaar afrika ka socday annaga afar qodob bayna u xidhay oo iyagana ku xidhay afartaa qodob waxay ahaayeen kow maxaa isku haysaan waxaan isku haynaa xadka ingiriiska iyo xadka taariga iyagu way diintaa xad reer bay sameeyeen xad reer oo qabaliyaan ku stuurana oo halku ku yaala labiyada su'aal adag ma aha haddii afrika dhan qolqolo loo kala gooyo la soo celiyo farmaajo xamar ka aan maayo madaxweynadii haddii Soomaali qolqolo loo kala beeraha heero xadkooda war qarso iska cad marda taas suurtooda dee xadkii hore inoo yaala waa qodob yaala oo nin walba dabar ku noqday shan waxay yiraahdeen joojiya xabad joojin ogolaada waa ogolaada waxay yiraahdeen hala sii daayo maxaabiista diyaar baan u ahay caawdaan jooga diyaar baan u ahay hadii laga helay sida ciidamada loo kala durkiya ha laga wada tashay waayo waxay leeyihiin ciidamada dib loo celiyo ana waxa leeyahay xadkii 70 kilomitir bay iga hadhay saan uga dhaqo dalkayga dhexdiisa arrintaa waa lagu jiraa waxa soo dhex gashay meesha qolada ilaas wasiirka telefoon ma nagu hadlay waa ogolaaday isna wuxuu waa ogolahay waraaq bay soo direen waa 8 bilood ka hor mid waraqada noo saxay kalsoonida arrintaa idin gogolo waa saxay waa diiday isuuran baa soo gashay safiirka arrimaha waa soo hadlay intii la guul warqadu waa noo saxay afkii ka aqbalay waa saxay waay ilaa markay taagantay waxay midkii soo Afrikaanka ahaa wuxuu ka bilaabay halada dhexdhexaadiyay xagee baa doonaysa isagu mar walba iyagu waxay sheegtaan Ankara iyo Dooxa wuxuu waxaan geynaa Johannesburg waa ogol isagii baa lagu weeriyay hadda cishadooda waxay boorwan oo ka sheegay Turkiga warkariga ku aqbalay meeyne caalamku kala soo dhex galo wuu aqbalay warqad soo celiyay hadda Ingiriiska Mareykanka EU Afrika baashan Yurub ka soo tagtay Sweden inta wuxuu ka codsaday in la isugu yimaado bisha 19keeda meesha la Ghana Accra si loo sameeyo gudi caalami ah oo Soomaaliland iyo Soomaaliya ka dhex gashay waxa waara inay xamar iyo inta la joogtaa wax ka dagaalamaya walaalayaal waxay mahaynaa haddaynu Soomaaliland nahay warwar aan garano wayna isku dhiman xabad inaga daa aan wada hadal wax inaga dhaxeeyay waxaanu haynaa qora xamar joogto leh wada hadli ma yeelno waayo naga mid baa tii nama diidi kartaa iyagana taas ka goob bal halka xal laga helayo odayaalo aanu ka fikirno hadda noo garabayno dadka caanka u garabayay gaarana markay meel gaarsiiyaba way kaga baxaan marka meel ay gaarsiinayaan jilguba way kaga baxaan taa waxaan ugu dheeraaday waa arrin culus oo dalka culays ku haysta oo warar haysta oo inaynu fahamno mowqifkan ku socona ah ayaa iyada saayid ku balbalaariyay